sidan waa cadaalad darro iyo xaq darro ma ahana wax loo dul qaadan karayo. Farxaan Cabdi Cumar waxa uu ku xidhan yahay muddo 2 bilood ka badan xabsiyada Puntland. tani waxay ku tusaysaa dhibaatooyinka ka jira xabsiyada Soomaaliya haba u darnaatay Puntland. waxaa ku xidhan dad badan oo aanan dambi geysan iyadoo la ogyahay ama la siidayay dadkii dambiga lugta ku lahaa. Farxaan iyo dhibanayaal kale oo ku jira xabsiga waxay u baahan yihiin cadaalad iyagoo ka sugay Alle subxaanahu wa ta'aala ka sokow ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan si ay u helaan xaqooda. madaxweyne Deni iyo kuwa la jooga ee Puntland waxa ay hubaal ay yaqiinsan yihiin in Farxaan inta la midka ay ku jirta xabsiyada aysan lahayn wax dambi ah.